بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku ammaanyeelo cidii dhibandhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah u oofiyo inta baahan Allah deeqo inta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. qodobka koowaad Xasan Sheekh Maxamuud kadib markuu u jilcay oo u baqday nimanka la yiraahdo international community ama UN oo loo ballan qaaday markii hore in lagala tashanayo cid loo keenayo waxa lagu soo celiyay James Swan waa nin khabiir ah oo xogta iyo hawlaha Soomaaliya ka jira iyo Xasan Sheekh ba si fiican u yaqaan. waa nin garanaya geedkii kasta oo Xasan damco inuu galo geli jiray oo yaqaan. nin geed geli jirayna geed looma galo. nin geed geli jiray wala geed looma galo. waxaa halkaa ka dhacday jiljileec dawladnimadu inaysan u baahnayn. dawladnimadu adkaysi iyo geesinimo ay u baahan tahay. Xasan Sheekh Maxamuud dabeecadahan ku arkay waxaa ka mid ah wuxuu ordaa orodka ugu dheer meesha ugu fog buuna istaagaa. extremeka ugu fog buu istaagaa. markuu extremeka istaago buu hadhow isagoo aan wax credit ku helayn buu ka tanaasulaa iyadoo lagu kala dhintay oo lagu kala tagay. tusaale idin siinaya iyaantii dhaweydoo dastuurka hortiis buuqu kacay oo Puntland iyo isagu ay isqabteen oo laba madaxweyne hore ay case-ka soo galeen waxa ay ka codsadeen madaxweynuhu labada xisbi ka daa madaxweyne ku-xigeenka ka daa. madaxweynuhu wuxuu yiri loo joojin maayo cidna. waa ka diiday gogashii lagu dhamayn lahaa qadiyadaas na waa tuu baajiyo diiday inuu tago oo yiri awalba fadhi kaga kacba iga ahayde diyaaru ma ahayn. isagoo qoor dhiibtay waa tuu yiri qoorteedii waa ceshaday. maxaa ku xigtay intii uu nimankii ka diiday oo ay ku kala dhinteen oo uu credit ku heli lahaa oo la dhihi lahaa madaxweyne waa tanaasulay waa nin wanaagsan oo dadka inuu isku wada raba Puntlandna ay noqon lahayd toosh ku daarmi lahaa Siciid Deni oo ama uu soo raaci lahaa madaxweynaha sheekaduna halka ku dhamaan lahayd buuqa iyo khilaafku ama isagu uu noqon lahaa qofka villainka ah oo dambiilaha ah oo ummadoo dhan ay eedeynayso oo gardiidka ah. markii arintii uu isagu inta ku heli lahaa credit uu ka baaqday oo diiday buu intii laga rabay sameeyay. bas kana nasiib daro iyadoon cidina abaal ugu hayn. hadda muxuu sameeyay UN-ta waa tusaalaha labaad. wuxuu yiri hal laga xiro xafiiskan ha baxo. waa arrin muhiima loo baahnaa dalka dantiisa ku jirto aysan ogolayn beesha caalamku. marka maxaa la rabay inuu cagaha dhulka ku hayo. odayga Gutierrez baa soo wacay jilbuhu isla dhacay. waay warqad buu ka daba keenay. warqadaydii hore waxbaa ka khaldanaa tanaha saxa hadda hala bilaabo. team group ah oo baan u dirayaa inay sameeyaan maxaan ku iraahdaa waxa la yiraahdo processkii lagu xiri lahaa xafiiskan. muddo male guidelines ay ku socdaan male wax ay ku dhaqmayaan oo xeer ah oo qorani ma jiro. markii la arkay marka inuu jilcay oo libiqsaday ballanta waxaa ka mid ahayd waa lagala tashanaya baa hoosta loo soo geliyay iyadoo lagala tashan ninkii ugu kharibnaa oo lagu yaqaan macruuf ku ahaa doorasho waqtigeedii ku dhacda oo isla ogol ah oo wada ogol ah waxaan ahayn ma aqbalayno. madaxweynuhu geedku rabay inuu galo geedka doorasho qof iyo cod buu ahaa oo Xamse u hogaamiyo oo uu ka keeno wixii la oran jiray saddex ii keenaa mid kala bixee wax la mid ah. qadiyadaasna ay baa cunay. James Swan baa soo noqday. waxaan rabaa wax waqtigeedii ku dhaca waa macnaheedu maxay tahay May 15 doorashadu waa dhacaysaa. kow laba waxay ku dhacaysaa wada ogol. hadday marka hal maamul goboleed diidaan James Swan wuxuu yaqaanaa in lagu khasbo liidarka ama madaxweynaha lagu khasbo oo lagu camcamiyo oo lagu riixo
teendhadii afisyooni in la tago doorasho dadbanna ay saa ku dhacdo waa waxaan mar hore ku celceliyey laga fursan maayo sida hadda wax lagu wado sababtoo ah heshiis lagama aha maxaa yeelay interest shakhsiya baa qof walba buu ka raadinaya ka ilaalinaya marka dhaawac bay ku tahay qadiyadda ninkan soo galay ee doorasho waqtigeedii ku dhacda layslana ogol yahay baan rabnaa baa ku xigta iyo dowladdu waa inay ogolaataa in loo dhan yahay wadar ogol ay arrintu noqoto qodobka intaasan ka oranaya marka macnaheedu waxa weeye ma mahadin madaxweynuhu jileecii uu u muujiyey beesha caalamka dalkuna ma mahadin waddankuna ma mahadin madaxweynuhuna ma mahadin qodobka labaad firdhiye waxaa buuq baa kacay goortii loo diiday shirkii inuu ka qayb galo madaxweynuhu saan idiin sheegay wuxuu ordaa orodka ugu dheer meesha ugu fog buu tagaa extreme markaasu hadhow maxaa dhacday maanta waa lasoo fariisiiyey haye shirkii buu ka qayb galay haye saa maxaa la yidhi waxaa lagu soo qoray villa soomaaliya wixii hore sidii hore oo kaleba ceebe ka dhacday waxaa lagu soo qoray hogaamiyaha maamul goboleedka SSC khaatumo okay haddii uu yahay hogaamiye maamul kuwa meesha fadhiyana uu la mid yahay maxaa loo yiri warbixin baa laga dhegaysanayay oo loo oran waayey fadhiguu qayb ka yahay horta firdhiya isagu safar buu u socday oo muqdisho saasu ku soo maray waana loo carab laalaadiyey kadibna iyagaa ku soo qoray wasaaradda arrimaha gudaha beyjkeeda in uu ka qayb gelaya shirka oo qayb ka yahay kadibna waa tii la tirtiray villa soomaaliya hadda waxa ku qoran inuu maamul goboleed yahay hogaamiyena uu yahay hadduu hogaamiye yahay maamul goboleedna mas-uul ka yahay khaatumo la yidhaha SSC khaatumo dowladduna ictiraafsan tahay maxaa diiday inuu fadhiyo shirka madasha wadatashiga qaranku ma wax kalaa lagu fadhiyaa oon ahayn inaad maamul tahay madaxna tahay maxaa diiday isagu inuu fadhiisto maxaa warbixin looga dhegaystay muxuu uga qayb ahaan waaye go-aanada muxuu wax ugu yeelan waaye ceeb uun madaxweynihii baa maradii ka dhacday waxaan maqli jiray maalin baa dabayli yar intay timi wadaad tukanayo sujuudaya bay maradii ka qaada markaasaa nin baa hadlay oo wuxuu yidhi meeshaan dabayl balaahi ma jirine shiikha in dabadiisa la arkaa idmanayd buu yidhi oo qadarnayd marka meesha hadda hadduu fadhiisto oo warbixin ka dhiibo iyo hadduu fadhiisto talada wax ku yeesho nin soomaaliyeed weeye oo maamul dhan matale maxay u kala duwan yihiin waa un madaxweynihii meeshiina fariisi isagoo ka baqaya buuqii kacay iyo falcelintii ummadda iyo sidii looga falceliyey hadalladii iskhilaafsanaa ee dowladda ka soo baxay oo officialka ahaa buu wuxuu sameeyey ma garanaysaa waxaa cad madaxweynuhu inuusan qadiyadda SSC daacad ka ahayn waxaa kaloo cad inuusan xor u ahayn arrintaas mar walba oo arrintaa uu damco inuu wax ka qabtaba cid baa lug jiidaysa kolley Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ingiriiska iyo qolyo kale oo nimanka la yiraahdo Somaliland matalaya baa madaxweynaha awood xoog leh ku haysta oo arrintiisa gacanta ku haya arrinta SSC madaxweynuhu daacad kama aha weligiisna kama noqon marna banaanka uma soo istaagin dadkaas midnimada wada qolo leh waa kala goynaynaa dalka baa bar soo go-ay oo yiri midnimadaan rabnaa inuu ku yaacay ahayd oo ordo sida caadiga oo normalkaa maxaa yeelay madaxweynuhu midnimadu ilaalinaya midnimaduna u dhaarsan yahay iyadaana aaminsanahay buu leeyahay Ethiopia iyo Somalilandna waxaan heshiiskay saxiideen u diiday oo ula diriray oo dagaalka uga galay waxa weeye midnimadaan ilaalinaya dadkii midnimada wadana waa la gacan bidixaynaya waxaasi wax la fahmi karo maaha wax la garan karo cadaadis kala jira intaasaan oranayaa billahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.